bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan daawada kusoo dhawow wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka waa 17 bisha shanaad sanadka 2020 qodobada ugu waaweyn ee wararkeena ku daawan doontaana waxaa ka mid noqon doona faahfaahinada qaraxyo ka kala dhacay magaalada Muqdisho iyo sidoo kale magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug qasaaraha ka dhashay qaraxyadaasi iyo mas'uuliyiinta Puntland ka tirsan ee lagu waayo magacyadooda dowladda federaalka ee Soomaaliya hadii ay maxkamadayso siyaasiyiinta taageera Kenya maxaa dhacaya soo jeedintaasina miyay aqbali doontaa dowladda federaalka ee hogaamiye madaxweyne Farmaajo safiirkii Shiinaha u fadhiyay Israa'iil oo isaga oo meed laga helay gurigiisa iyo macluumaadyo soo baxaya Kenya oo u midowday cadawgeeda oo Soomaaliya ay kala jeeday iyo boobka badda Soomaaliya oo wili socda ciidamo xuduudda la soo dhoobay iyo Kenya oo marmarsiyo u yeeshay xirashada xadka ee la wadaagta Soomaaliya iyo Tanzania iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee ammaanka Muqdisho iyo Gaalkacyo ayaan kugu wadaagi doonaa wararkeena xilligan markale ku soo dhow wararka ugu waaweyn ee gudaha Soomaaliya iyo caalamka hadii ay tahay markii kugu horeysay fadlan subscribe saar oo la soco muuqaalada aan halkan ku soo gudbino ee tayada leh hadii aad ka heshay muuqaalka like saar si aan u ogaano heerka ka helitaanka ee macluumaadkan waxaan ku hormari doonaa qasaaraha qaraxyo ka kala dhacay Muqdisho iyo Gaalkacyo annaga oo markii hore eegi doona magaalada tan Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya faahfaahinno dheeraad ayaa ka soo baxaya qarax ka dhacay maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo yaraan laba qof oo rayid ayaa lagu warramaya inay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya qaraxa ayaa waxa la sheegay inuu ahaa miinada dhulka lagu aaso oo meelaha fogfog laga hago waxaana lala bartilmaameedsaday gaari cabdibilaaha oo ciidamo ay saarnaayeen kaasi oo maraya inta u dhaxaysa isgoyska Tarabuunka iyo cisbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir wararka waxa kale oo intaas ay ku dirayaan in wax qasaare kale oo aysan ka soo ciidamadii gaariga saarnaa ee qaraxa lala eegtay balse waxa lagu warramayaa in laba qof oo shacab ay waxyeello ay ka soo gaartay ma jirto wax hadal oo ka soo baxay laamaha ammaanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo arrintaani ku aadan sidoo kalena ma jirto cid sheegata mas'uuliyadda weerarkan qaraxa loo adeegsaday ee ka dhacay caasimadda amniga magaalada Muqdisho ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ahaa mid aad u wanaagsan marka loo eego qaraxyadii hore uga dhici jiray inkastoo mararka qaar ay dhacaan falal lid ku ah nabadgelyada markana waxaan eegi doonaa qaraxii xoogana ee ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug iyo qasaaraha guud ee ka dhashay qaraxaasi faahfaahinno dheeraad ayaa ka soo baxaya qarax qasaare geystay oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxaana soo baxaya macluumaadyo kala duwan oo ku aadan qasaaraha qaraxaas mas'uuliyadda qaraxa waxa sheegatay al-shabaab waxaana ay sheegeen in iyaga ay ka dambeeyeen qaraxa maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee lagu dilay gudoomiyihii gobolka Mudug ee dhanka Puntland Axmed Muuse Nuur iyo qaar ka mid ah ilaaladiisa dhawaqa qaraxa ayaa laga maqlay dhanka waqooyi ee magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxaana lagu warramayaa inuu ahaa qarax xoogan oo laga maqlay bartamaha magaalada sida ay sheegayaan wararka laga helay magaalada Gaalkacyo gudoomiyaha ayaa ka soo baxay xafiiskiisa wax yar ka hor inta uusan qaraxaasi uusan haleelin waxaana la soo sheegayaa in qasaaraha aan wali tirikoob rasmi ah laga hayn sida lagu qoray warbaahinta al-shabaab taageerta waxay sheegteen mas'uuliyadda qaraxa maanta ka dhacay waxaana qoraal ka soo baxay taliska ciidamadooda lagu sheegay in qaraxa maanta ay ka geysteen Gaalkacyo ay ku dhinteen saraakiil ciidan oo Puntland ka tirsan iyo gudoomiyihii gobolka Mudug ee Puntland magaalada Garowe 29kii bishii la soo dhaafay Maars ayaa qarax sidan oo kale lagu dilay gudoomiyihii gobolka Mudug ee Puntland waxaana arrintaani ku soo aadaysaa iyadoo ciidamada ammaanka ee Puntland howlgallo amni ay ka sameynayaan deegaanada Puntland oo ay kaga hortagayaan falalka amniga lidiga ku ah ma jiro wax war oo ka soo baxay dhanka Puntland oo ku aadan qaraxa maanta ka dhacay magaalada laakiin saraakiisha ammaanka ayaa waxay sheegeen in baaritaano ay wadaan waxyaabaha ka soo kordha wararka iyaga dambe ayaan ku eegi doonaa markana aan eegna tala jeedinta la siiyay mas'uuliyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya hadii ay taladaani qaataan maxaa dhici karaya qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa waxay qabaan in dowladda Kenya ay Soomaaliya ay kala dhaxayso dacwad dhanka badda ah ay gacan saar ay ka helaysay siyaasiyiin kale oo Soomaaliyeed siyaasiyiinta lagu eedeynaya gacansiinta Kenya ayaa la sheegay inay ku kala nool yihiin dalka iyo dibaddiisa kuwaas oo la tilmaamay in Kenya ay ka gacansiinayaan damaceeda ku aadan in meel ka baxsan maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ay ku xukumisay kiiska dhanka badda Maxamed Jaamac oo mar wasiir dowlad ka soo noqday wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee Soomaaliya sidoo kalena noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa siyaasiyiinta qaar ka mid ah waxa uu sheegay inay xilal hore ee u soo qabteen dalka isla markaana ay ku eedeynayaan damaca Kenya ee hadda ay gadaal ay ka riixayso
siyaasi maxamed jaamac ayaa madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya usoo jeediyay inay maxkamad ay la tiigsatay siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku lugta leh arrinta kiiska dhanka badda ee ka dhexeeya soomaaliya iyo kenya kuwaasoo isku dayaya sida uu sheegay inay u hiiliyaan kenya haddii tallaabadani ay qaado dowladda federaalk ee soomaaliya maxaa dhici karaya mase muuqataa in siyaasigani uu dhanka wadaniyadda uu ka ega maadaama dalkiisa uu doonayo in uu ku guuleysto kiiska dhanka badda islamarkaana gebi ahaanba lasoo qabto siyaasiyiinta taageeraya damaca dowladda kenya waxaa ku kalifay ayaga dabadhiris soomaaliyeedna waa joogaa dabadhiris kuwa dabadhiris oo haddaan la ku dhuulaqaatayaala oo siday rabaan haddaan la ku roon yahay aysan u noqonayn oo dadka soomaaliyeedba midabkay soomaali ka yihiin bahda soomaali kama maaha oran karnaa iyo qalbiga kuwaasaa haddaan la ku roon yahay yay been isku sheegaan beentaasuna way dhammaanaysaa ummadda soomaaliyeed dhulkeeda iyo dalkeeda iyo diinteeda way ilaashanaysaa qaahin wadan lama waayo qaahin wadan adduunka dowlado badan iyo adduunka qaahin wadanku meel waa jooga waa iska qabanaynaa kuwaas meel allah niman gulahayo waana iska qabanaynaa horta dacwadu ha dhacdo cadaaladda ha lagu dhawaaqo markaasay ogaanayaan waxay biyaha ku soo furma oo ayagaa shaqada laga bilaabahaya kow hebel baa la leeyahay ninkii maalin u hiiliyey maalin ama ha joogo maamul goboleed ama ha joogo meel kale maalin ninkii kelmad ka yidhi annaga ummadda soomaaliyeed aan u roonayn dhagaheeda ninkaasna soomaaliya u tahay waa garasiyo inaan la daynayn biyadaadaha kaalahayo markaana waxaan eegi doonaa wararka ugu waaweyn caalamka warbaahinta Israa'iil ayaa waxay warinaysaa in gurigiisa laga helay isagoo meeda safiirkii China u fadhiya Tel Aviv mana jirto sabab la og yahay oo ka dambaysa dhimashadiisa horaantii sanadkan ayay ahayd markii safiirkan la magacaabay waxaana uu ka soo shaqeeyay wadanka Ukraine ka hor inta aan la geenin magaalada Tel Aviv Dr. Du Wei oo da'diisa lagu sheegay inay tahay 58 sano jir ayaa meedkiisa laga helay sariirtiisa korkeeda isaga oo booliiska ay durbaba ay baaritaano ay ku bilaabeen waxaana jirta ila wareedi caafimaadka mid kamid ah telefishinada Israa'iil u sheegay in mas'uulkan uu geeriyooday isaga oo hurda shaki badan ayay dhalin karaysaa dhimashada maadaama la ogyahay inuu si cad u dhaleeceeyay wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo oo wadanka China ku weeraray qaabka ay ula tacaaleen viruska dunida dhibaateeya ee corona safaarada mas'uulka uu ka ahaa safiirkan ayaa sidoo kale dhaleeceysay hadal ka soo yeeray Mr. Mike Pompeo waxaana lagu daabacay wargeyska Jerusalem Post dhinaca kalena Kenya ayaa u midoobaysa ujeedada ay ka leedahay in guud ahaan qarankaasi midnimo lagu muujiyo dadka dalkaasi Kenya u dhashay iyo siyaasiyiinta madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa hadalkaani jeediyay kadib markii khudbad uu dhinacyo badan kaga hadlayay uu ka jeediyay xarunta aqalka looga taliyo dalkaasi Kenya ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxay iminka u midoobaysaa guud ahaan siyaasadeeda iyada oo la doonayo in ay midnimo qaran ay muujiyaan xisbiyada kala duwan ee dalkaasi Kenya ka dhisan iyo sidoo kale siyaasiyiinta iskhilaafsan gabi ahaantoodba ujeedaduna waxay tahay inay u midoobaan cadawgooda Kenya ayaa iminka xiisad waxay kala dhaxaysaa dowladda federaalka ee Soomaaliya taas oo ku aadan dhanka badda iyada oo dowladda Kenya ay doonayso inay ku darsato biyo badan oo Soomaaliya ay leedahay xisbiga Jubilee ayaa iminka waxa lagu waramayaa in dhankiisa uu ka soo kabanayo kala aragtiyo duwanaanshiyo xisbiga dhexdiisa u dhaxaysay wargeysyada dalka Kenya ayaa waxay muujinayaan macluumaadka ku aadan midnimada iyo ahmiyadda ay leedahay iyada oo dowladda Kenya oo xiisada siyaasadeed ee kala dhaxaysa dowladda federaalka waxaana dhinaca kale ay marmarsiiyay u samaysay ciidamo badan oo ay soo dhigtay dhanka xuduudda iyo xirashadii xuduudda ee la wadaagtay dalalka Tanzania iyo sidoo kale Soomaaliya Uhuru Kenyatta waxa uu sheegay ujeedada ay arintaasi u sameeyeen inay tahay inay gabi ahaan bay ka hortagaan faafitaanka caabuqa coronavirus iyada oo wali ay socdaan dhaqdhaqaaqyada iyo soo socodka dadka oo dowladda Kenya ay ka joojisay xuduudda ay wadaagaan dalalka Kenya iyo Soomaaliya